kuwii dagaalada galayay rag dhalinyaro baa ahaayeen kuwii wax kasta qabanayay ismac minni saxaaba wuxuu leeyahay waxaa jiray niman dhalinyaro ah oo quraa la yidhaahdo oo inta yimaadaan maalintiina masaajidka habeenkiina masaajidka jooga maalintii way baxaan biyay soo keenaan oo dadka masaajidka u soo dhigaan si loogu weysaysto way baxaan way soo xaabaystaan dabeetana way soo iibiyaan xaabada markay iibiyaan wixii ay ka helaan bay cunno soo siiyaan ahlu sufaa masaajidka u keenaan xawaalay 70 dhalinyaro ka mid ah habeenku waa cibaadaysanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxbay ka baranayaan dadka masaakiinta ah ee ahlu sufaa bay caawinayaan muslim kale masaajidku tukada bay axsaan u samaynayaan yani xoog furan waa dhalinyaro maxay xoog furan waxay ahaayeen mawaatintii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu istaagay oo dhamay raggii dhinac socday dhalinyaro cabaadaladu maxay ahaayeen ibnu cabbaas ibnu cumar cabdillahi ibnu camar dhalinyaro ابن عمر وكله كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن الشباب أنا قلنا لي رابنا إنه قريبين أنا إلى هنا مساجد كسيحن شرين بطلمامية ابن عمر مساجد كانوا إنه سيحن شريبولي وقوال قتلمامية شباب من الأنصار تضباطنا هي والقراء لورن شري إنه مساجد كشوق شرين ومالتينا يشقوين كقمن شرين هبين كينا إن من كعبادة استاهان شرين dadkana taageeray ahaayeen idan dhalinyaradu laba cillo ay leedahay labadaas aan idin ka digaya ku gabagabeynaya laba cillo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan u yaqaana waa suuqgalka waa inuu ninku tasayub xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 13 markaad isku qasabto maalin afraadana sigaariya baad noqonaysaa khamra maalin la yiraahdo tijaabiya maalin toddobaadana khamriya baad soo baxaysaa suuqa habeen ama laba la tijaabiya bariga dambena routine walada sabtida hadda wadada sii taagan baad noqonaysaa idan kaas waa inxiraaf waa tasayub waa inaad tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxaa adag inaad soo noqoto bale waxaa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baaba'do kaa inta badan dadku wuu iska waaniyaa mid dhanka kalaabaa isna jira dhalinyaradu markay cibaadada qabsadaan ay qumanaanta qabsadaan waxaa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca xagga kale uga dhaca maxaan uga jeednaa nolosha miisaankeeda ka luma dabeetana wax buu tiro badiya walow taacana ha noqotee dabeetana wax kale ku xadgudbaya مثلا عبد الله بن عمر بن عاص به وغوري سواء ان dhalinyaro markii loo guuriyay ninkana wuxuu ahaa nin quraan akhris badan oo soom badan habeenkiina uu taagayo quraan uu akhriya maalintiina salaad uu habeenkiina quraan iyo salaad buu wada maalintiina waa sooman yahay inantii loo meheriyayna kanafkeeda ma taaban ila wanan maalina sooman habeenna taagani aabaheed baa soo maro wuxuu yidhi war bal warrama inantii buu yidhi bal warram nicma rajul huwa rag isagaa u fiican bay tidhi mase arag macnaha bay u tilmaamtay u guud marta ragna waa u fiican iyo xumo ku sheegi maayo oo ninkaa soomane salaadaya dee cibaado u taagan reerna ma oga unbaa la leeyahay dabeetana nebigu uu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaa la yidhi sanaad ku wada sax maaha quraanka intaad ku akhridaa dee waa habeen kasta oo kaga tuuraa buu leeyahay waa dhameeya kadaa baa la yidhi bishii mar dhamee quraanka markaasuu yidhi maya
waan ku xoog badnay iidaa ilaahay rasuulkiisiiyo xoogaygaan ka faa'iidaystay haddaad dhowr iyo tobankii casho dhamme baa layidhi ma ilaahay rasuulkiisiiyo iidaa waa xoog badnay aan ka faa'iidaystay toddobaadkii mar dhamme may waa xoog badnay aan ka faa'iidaysto war mar saddexdii casho mar dhamme baa layidhi may waan xoog badnay war halkaa lama dhaafo buu nabigu yidhi saddex casho lama dhaafee ka joog waxaa lagu yidhi war maanan soomaa waanan afuraa dan waxaa loo tilmaamay right wayga isagoo soon iyo salaad iyo qur'aan akhris ku jira waxaa loo sheegaya xuquuq kale inay luntay maaha soon iyo salaad inay xuquuqda kale lumiso salmaan alfarisi ayaa ninkii la walaaleeyay abu darda abu ayub al-ansari si abu darda ayuu la seexday habeen buu yimi dabeetana waxaa arkay xaaskiisiiyo maryo iska kuwii lagu shaqayn jiray iska sidata dee gabadh la qababa aan u ekayn maxaa dhacay buu yidhi waxay tidhi walaalka adduunyadan kama leh aakhiru ku mashquulsan iyo meel kale habeenkii wuu la seexday in yarba markii la jiifuu soo booday saxaabigii dabeetana salaad buu is yidhi xidho war seexa buu ku yidhi salaad leyna iska seexo waa ka celiyey abaan markii la jooguu soo booday war seexa buu ku yidhi waa seexiyey goor dambe ayuu yidhi kac iminka waa la tukaday dabeetana wuxuu ku yidhi war dhegayso naftaaduna xaq bay kugu leedahay cidi kuma odhan habeen oo dhan soo jeeday habeenkii nafta u raaxee inna ilaahay caabud naftu xaq bay kugu leedahay ilaahayna xaq buu kugu leeyahy reerkaaguna xaq bay kugu leeyihin buu tilmaamay waxaan waa xuquuq mid walba lagaa raba inaad gudbiso subxii baa loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam salmaan run buu sheegay buu leeyahy sidaa uu salmaan sheegaa saxa waxaan uga dan leeyahay dhallinyarada xagga cibaadada timaadaana tatarufkan kale ku dhacaa inuu yidhahdo anigu tacliintii maan iska daynaya waxba baran maayo meel lagu xoogsi tegi maayo naaga qaawan baa meelaha heer marmara maxaad qaban dabeetana sooshiyaalkaad baryaysaa dabeetana masaajidkaad dhex fadhiyaysaa hada laysa bidiin wax saxa maaha cibaadayso sax salaadaada ilaasho soonkaaga ilaasho been ha sheegin run sheeg cibaadayso laakiin noloshii activitigeedana waa cibaado kale ka qayb qaado waalidkaa u samafal mujtamacaaga u samafal dadka wax u qabo idan waxaan leenahay ku soo koobaya waqtigayga waa iska dhammaad baan filayaaye shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi baa ammaanan laakiin labada tataruf midna diinta kuma ammaana inaad noloshoo dhan one sided ka dhigto oo noloshoo dhan aad si qura u aragto nolosha waa laynagu itixaamay ibtilaaga dhammaantii inaad gashaabaa loogu talagalay ee anugu waxaan ku jirayaa uun halka kani sax maaha si awgeed waxaan leenahay dadka ammaanani waa dhallinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaantaa leh cibaadadoodaasi dadka kale toddobada mawaaqif baa loo sugaya iyaga mowqif gaara looma sugan cibaadadooda mutlaq baa laga dhigay waxaa cibaadadooda mutlaq looga dhigay bay leenahay inay noloshoo dhan ilaahay u hogaamiyaan labada darafba waa xun yihiin markaa inaad darafkaa cibaadada uga dhacdo tataruf u baxdid iyo inaad darafkaa kale uga dhacdo tatarufka waxaa sababaana qofka dhallinyarado isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiinin way hagi lahaayeen waxa saxa ah sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin